iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay degmada Balanbala ka jireen cabsi laga qabay xanuunka dunida halakeeyay ee coronavirus ayna jireen dad badan oo xanuunka looga shakisan yahay inuu haleelay oo la karantiilay ayaa waxaa saaka magaalada soo gaaray wafti ballaaran oo ka socda dowlad goboleedka Galmudug oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo dhakhaatiir ka socda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana waftigu hogaaminayay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Axmed Mire Faafaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Cabdirasaaq Xujo ujeedada safarkan ayaa ahaa oo kuurgelida xaaladda caafimaad ee ka jirta degmada Balanbale waxayna xildhibaanada iyo wasiiradu si guud u kormeereen isbitaalada magaalada waxayna warbixino ka dhageysteen maamulayaasha iyo dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalada markii uu soo gabagabay kormeerka iyo kuurgelida baahiyaha caafimaad ee ka jira magaalada ayaa waxaa warbaahinta la hadlay maamulka degmada Balanbale ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Balanbale Jaamac Hayle wuxuuna makarafoonka ku wareejiyay isku dawaha caafimaadka magaalada Balanbale Maxamed Yuusuf aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta inayna soo booqdaan wafdigan sharafta leh oo ka socda dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda dhexe sababtoo ah maanta adduunka oo dhan waxaa ka dhacay xanuunkan coronavirus oo adduunka oo dhan saameeyay degmadan Balanbale waa markii koobaad oo wafdi ka socda hawlahaas inuu u kurgalo markii koobaad uu soo gaaray weeye dhowr biloodna way socotay hawshaanu degmadan Balanbale runtii waxay ka mid tahay meelaha uu saameeyay xanuunkan mana lahan adeeg caafimaad oo far badan laakiin wixii looga hortagi lahaa arintan oo ugu muhiimsan yihiin dhacaanka wixii lagu qaadi lahaa iyo wixii lagu neefsan lahaa midna ma hayno waxaana nagu furan xuduudka Itoobiya oo aad u ballaaran deegaankaanuna waxa weeye dad badan baa hadda jiifo xanuunsan waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladda Galmudugba in si degdeg ah dadkan loo soo gaaro oo wixii loo heli karo oo qalab caafimaad ay ugu daran yihiin wixii lagu neefsan lahaa iyo wixii wax lagu baari lahaa in lala soo gaaro waan soo dhaweynaynaa marka koobaad waftiga noo yimid marka labaad waxaan la wadaagaynaa baahida ka jirta degmada Balanbale ee caafimaad halkan waxa weeye isbitaalkii guud ee degmada waad aragteen qaybihiisa kala duwan iyo sida uu u diyaarsan yahay haddana cid gacanta ku haysa oo hadda ama hay'ad ah ama dawlad ah ma jirto waxaan rabnaa marka koobaad in dawladda Galmudug iyo dawladda federaalka ahba isbitaalka si degdeg ah ama hay'ad ama dawlad gacanta ku haysa oo tasaliidkiisa iyo gacan ku hayntiisaba nagala wareegta in loo keeno dhanka kale ayaa waxaa iyaguna meesha ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Faarax xildhibaan Gurey iyo wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska waxayna dhankooda ka codsadeen in Balanbale baahida caafimaad wax laga qabto runtii Galmudug waxaan maanta nasiib u helay in wasiiradii ugu horeeyay ay booqasho noogu yimaadaan runtii arrintaas waa baraarujinaynaa wasiirada waxaan faraynaa magaalada Balanbale in Galmudug laga nabcayn marka wasiirada iyo xildhibaanada sharafta leh waxaan runtii aad u bogaadinaynaa inaad nala aragtaan baahida taala Balanbale soo dhawaada nala arka waxaan rajaynaynaa kulay in warbixin fiican oo runtii waafiyo oo dadka reer Balanbale ku farxaan inay heli doonaan haddii Ilaahay idmo ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Galmudug Axmed Mire Faafaale ayaa sheegay in baahida degmada Balanbale si degdeg ah looga soo jawaabi doono farxaday noo tahay maanta inaan Balanbale imaano mishinkan u soconana akhirtii ugu horeysay aad u faafahisay waxay ahayd arrinta coronavirus ku saabsan oo runtii aan iskugu jirtay laba arrin iskugu jirtay qayb waxay ahayd qalab ka hortagga ah ama BPE-ga la yiraahdo oo aan wadnay si maaragtay emergency-ga hadda jira looga sii faa'iideysto qodob kalena wuxuu ahay dhaqaatiirta nooga timid xamar ee dowladda federaalka noo soo dirtay oo ilaa shalay caawid waqti joogtay oo baaritaanada ka sameeynayay in halkaana sambar laga qaado si loo ogaado in cudurku jiro oo waxa dadku u dhimanayaan iyo dhibaatada jirta cudurka tahay iyo in wax kale tahay horta arrinta Balanbale iyo caafimaadkeeda iyo isbitaalkan iyo xaaladda ku saabsan waxaan isleeyahay isbitaalka maanta waan soo kormarnay
waana istaal runtii si fiican loo dhisay loo qalabeeyey shaqo badanna laga qabtay annaga ku wasaarad ahaan istaalkan waxaan ku darsan doonaa noodka insha Allah in wax laga qabto oo loo helo maxaa la dhahaayay waxa uu u baahan yahay qalabkiisa waa haystaa dhismo aad u ballaaran oo aad u qurux badan uu leeyahay laakiin wuxuu u baahan yahay maintenance-igu u baahan yahay dhaqaatiirtii mushaarkoodii iyo wuxuu u baahan yahay iyo shaqaalihii ka shaqeeylaha arrintaas insha Allah waa ku dadaaleynaa arrinta ku saabsan coronavirus runtii laba kiiso cusub oo shalay ah ayay nala wadaageen runtii bahda caafimaadka iyo gudoomiyuhuba oo mid kamid ah caawad loo qaado dhax ay ku dhimatay waxa dareemi kartaan marka kiisas horena way jireen marka arrintaas inay arrin serious ah inaan anaguna sheegno dawladdii u gudbino midii dawladda federaalka u gudbino in yani balanbale in lala soo gaaro inay u baahan tahay inta degmooyinka la u baahan yihiin in u baahan too kale waliba ayada ay u sii dheer tahay inay xuduud aad u ballaaran oo Ethiopia oo waxyaabo badan oo runtii cudurkan faafitiisa fududeynaya ay markasta ka soo galayaan si kastaba ha ahaatee iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay jireen dad looga shakisan yahay xanuunkan ayaa waxaa saaka saambulo laga qaaday dad ka badan 20 qof oo isugu jira rag iyo dumar si looga baaro xanuunkan Siciid Jeytaali Siciid Bulshaawi Kelson TV magaalada Balanbale